هيقع على سهيبو ما أنت واد إبلا مساء محيطة إبلانتا دقدق واد يقيادي حبيبي بلانتان أنكو قيادة وبلانكا فرحين دونتا إلا حالا يودن يعني waxaan doonayay inaan kula soo hadlo waayo aragtidaada ayaan doonayay inaan war farxad la ku sheego waayahay warka farxadda la ii sheegaysaa muxuu yahay xabiibi safar ayaan u baxay hadduu ilaahay ka dhigo safar barbarmiyaad aadaysaa mise booramaad aadaysaa sheekadii maya xabiibi barbariye boorama toona ma aadayo habaryara ayaa fiisa ii soo dirtay marka Addis Ababa ayaan tegayaa hadduu ilaahay ka dhigo Addis Ababa ayaan hawlahayga ku dhamaysanayaa markaa waan dhoofayaa Addis Ababa ayaan tegayaa haa gacaliye qaali maxaa kugu dhacay warkayga kumaad farxin miyaa bal ii sheeg oo waxaan islaaba jacaylkaagu warkan wuu ku farxayaa maxaa ku sababtoo ah adiga ayaan kuu maqnaa marka maxaad la warwaraysaa maxaa kugu dhacay bal ii sheeg hibo adiga ma ka fikirtay hadda haddii aad iga tagtid Yurub caadid xiriirkeeni maxaa u dambeynaya jacaylkii intaasoo dhan aan soo wada wadnay meed cidlo uga tegaysaa maya xabiibi uma tegayo ballan iyo axdi wax ka weyni ma jirto ballan iyo axdi baan anigu kuu qaadayaa haddaan halkaa tago inaan adiga ku iloobin jacaylkeennii iyo xidhiirkeennii midna toona aanan iloobin hibo anigu dadka Yurub aada si fiican baan u aqaanaa sidee buu noqonayaa xiriirkii intaasoo dhan aan soo wadnay hadda haddii aad Yurub kaligaaga aadid aniga halkan aad igta aniga maxaa ii dambeynaya hibo aniga ma iga fikirtay waxa ii dambeynaya haa qaali waan garanayaa waayo qof jacaylkiisii ka dhoofay run ahaantii waan dareemi karayaa dhibaatada uu mari doono waana kuu ballan qaaday inaanan ku khiyaamaynin anigu oon telefoonkaa la soo xidhiidho hadduu ilaahay ka dhigo waayahay waan ogolahay hibo ballantaa laakiin aniguna waan kuu qaadayaa inaanan qofna xidhiir la samaynaynin axdiganana aan ilaalinayo ballantaana anigaa kaa qaaday aniga dhankayga looma baahna inaad ka warwartid laakiin arrintaasi dulqaad fara badan bay iga baahan tahay waad og tahay daqiiqad xataa kaama ahaan kara adiga haddana sidaasay tahay waan isku dayayaa maadaama aad adigu horumarkeena labadeenna ka fikiraysid iina soo laabanaysid inaan ku suga mooyo wax kale ma garanayo waad ku mahadsan tahay xabiibi laakiinse xabiibi inaad ii qosashid ayaa qurux badan murugo ayaan kaa dareemaya adiga in yar ii qosol maya sidaa ha u hadlin adiga haddii baan ku hor fadhiyo oo adigaan ku haysto wax iga warwarsiinaya ma jiraan midda keliya aniga markii hore murugada igu wacneedna waxay ahayd tegitaanka adigu aad iga tegaysid laakiin adiga anigoo kula jooga oo ku haysta lagama yaabo inaan murugoodo waad mahadsan tahay xabiibi kaston salogisa toq isan yadi haatan urda seexa la diiday sorna han cun waaye inkaston salogisa toq isan yadi haatan urda seexa la diiday sorna han cun waaye samirkay mohongobo ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadasha xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadasha xigi doonta badadkii sida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya baladkii sida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya
warsame hala waa ku baahnaa aaba warsame maanta waxaan kugu yeeray arrin adiga ku saabsan mustaqbalkaaga inaan kaala sheekaystaan doonayo waayahay ma xumo aaba maxay tahay arrintaa doonaysa inaad igala hadashid abba waad dareemi kartaa wiilkayga aan jecelahay inaad tahay abba waxaan rabaa inaad gabadhii Leyla ahayd saaxiibkayga u dhalay inaan kuu doono ayaan doonaya guur abba macaan waa mustaqbal laakiin aabba anu xilligan diyaar uma yahay guur sababta diyaar ugu heen maxay tahay aabba aniga waxaan jeclahay gabadh hiba la yidhaahda oo hadda Sweden joogta ballanna waxaan ka qaaday markay soo laabatay inaan guursanayo marka arrintaa ma samayn kara iga daa ma qof Sweden hadda ku maqan oo iminka Sweden tagtay ayaad mustaqbalkaaga oo dhan u baabi'inaysaa aabbo miyaadan ogeen wiilkayga curadka ay tahay oo keliya aan haysta inaad tahay gabar iminka maqan waqti imaanayso inay isbeddel ku dhacayo maxaad ka og tahay aabba laakiin gabadha waan jeclahay dee haddaad jecesha jacaylkaaga kuuma diidani aabba aniga saan kugu sheegay hadalkayga inaad yeeshid ayaan jecelahay maya aabbo way ugu adag tahay haddiiba aan guursanayo qof aan hibe ahayn ma guursanayo go'aankaas ma go'aankii u dambeeyay aad gaartay miya haa aabbo hibana kama maarmo haddana waan sii tegayaa aabbo aabbo maxaa kugu dhacay oo saan ugu warwarsan tahay abbo waxaan ugu walwalsanahay waad dareemi kartaa waayo wiilkayga curadkaa tahay waad dareemaysaa marnaba ismaan lahayn wiilkaaga hadalka u soo jeediisa ama waxaad u sheegtay inuu marnaba aad iga hor istaagaysa umaan maleelaynin laakiinse nasiibkaygay noqotay annan waxaan lahaa wiilkaaga curadka ah inuu mustaqbalkiisa si aad carruur igu dhashid carruurtaa dhashid awow oo noqdo ulijeedada intaas bay ahayd laakiinse nasiibkaygay noqotay anigana maya aabbo waad og tahay aabbo inaad aniga qaali igu tahay aan ku jeclahay hadalkaagana ma diidayo haddana waxaad aabbay tirahdid maan samaynayaa ciddaad doontid guurso ayaan guursanayaa halkaad doontid ayaan tegayaa lama baahna aabba arrinteeda inaad ka warwartid mar dambe aadan kaaga mahad celinaya aabbo waana kuu duceeyey yeelitaankaa yeelitaan waan kuu duceeyey saasaan kugu ogaaya aabbo gabadhii odaygii maxamedna iminkaan la hadlayaa reerkiiyaan la socodsiinayaa waana mahadsan tahay aabbo waana kuu duceeyey khayr allah ku siiya haye aabbo haye aad baana iga farxisay haye aabbo nolo aabbo هلو محمد هلا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أيوة يا نبضي نادر سو اسكمو وناكسن الحمد لله والله والبشارة لنا وانكو وضع ما شاء الله هي سودة
wiilkiina waan sheekaysanay haye arrintii maalintii aan isku soo hadalnay wiilkii gabadha arrimahoodii ayaan warkaaga hayaa maasha allah haye dhinacayna way ka soo dhammaatee maasha allah haye bal dhinaciina goormaan idiin imaanaa balballanay qabo maxamedow diyaar baan ku ahay diyaar mar walba diyaar baan ku ahay allah yaciisak sharaftaas baan kugu ogaa diyaar baan ku ahay haye haddii ilaahay yidhaha khamiista ayaa kaaga dhigaya ballanta khamiistan soo socota tan soo socota haddii alla yidhaha bas khamiista soo socotaan waxaan u imaanaa haddii ilaahay yidhaha arrintana waan kala tuurayn ogol diyaar baan ku ahay ayaa asalaamu calaykum khayr allah ku siiyo insha allah reerkiisa iskama ficna aad iyo aad ay u wada fiican yihiin waaye maasha allah sidoo kale waaye haye alxamdulilah wasalaam ya waaye inaad haye walaal waad mahadsantay haye haye hibaaqay saaxiib waxaan kuu hayaa arrin aad ku farxi doonto oo adiga kaa farxin doonto weliba haye saaxiib khayr weeyaan bal ii sheeg arrinka aad baan ugu baahanay waayo farxaddaada adiga waa farxaddayda maadaama saaxiibadayda qaaligaa tahay waa run saaxiib waayo dhe dad saaxiibanu ahayn intaasoo dhan saaxiib soo ahaa arrintaan kuu hayaa waxay tahay odaygii aabba ayaa rabay inuu aniga wiil igu daro haye saaxiib anu aad baan ugu faraxsanay markaa ay sheegtay waana balnay inaan qayb libaaxo aad u ballaadhan ka qaata meherkaaga laakiin saaxiib inankan hore xidhiidh mayniga dhexeeyey saaxiibay waa runtaa waan ogahay inaad weliba qayb muhiima ka qaadanaysid adigu laakiinse saaxiib wiilkaa wax xidhiidha maanu samayn wiilka aabbihii iyo aabba ayaa saaxiib soo ahaa isna garanayay kadib aabbay guri wiilkaasaan kugu darayaa aniguna haya baa idhi saaxiib waana ka diidi waaye waayo dhe aabba wuxuu go'aamiyo inaad ka diidda maaha saaxiib meherkayguna wuxuu dhacayaa insha allah habeen dambe walaalo waalidkunba iskaysiiyey haa waalidka iskaysiiyey والله صاحب ورك هذه شكتي آد بانو بفرحي dad waalidka ku hadal celisinna wax ku hagaagayaan ها صاحب ورنا marka allah khayra ka dhigo saaxiib أي صاحب إن شاء isoo ducee insha الله أي allah صاحب أي maalmahan jacaylkaygii warsame lamaan hadlin aan maanta waxu diro oon ka farxiyo هلو حبيبي هيبو هلو warsame ma fiicantahay xabiibi waan fiicanahay adiga xaaladaada see tahay alxamdulilah aad baan u fiicanahay run ahaantii markaan sweden tegay jacaylkaagii ayaa igu sii siyaadayey marba marka kasii dambaysaa waxaan sameeyana ma garanayo waan gartay aniga waa sidaas oo kale ayaan kaaga fikirayay iga waran bal hadda xaaladaada sweden sidee kugu tahay xabiibi wallaahi markaan sweden tegay jacaylkaagii aad ayuu igu sii siyaaday jiif iyo joog waan diiday mar walba adiga ayaa i hor imanayay xabiibi shaqo fiicanna waan helay alxamdulilah waaw maasha allah waaba fiican tahay haddaad shaqada saa u fiican heshay aad iyo aad baa kugu habalyeynayaa runtii waan codlooday hiba markii aniga aad iga tagtay cid aan la qoslaya cid aan la farxatoona waan garan waayay xabiibi aad baad u mahadsan tahay laakiin mid ayaan kaa ilaaway qaali waxaan kaa ilaaway maanta waxaan doonayaa inaan kaa farxiyo $1 ayaan xawaalada kuu soo dhigay markaa ka qaada xabiibi $1 haa qaali waad mahadsan tahay xabiibi aad iyo aad baa u mahadsan tahay anigaba haddii aan booskaa ku jiri lahaa tallaabadii aan samayn lahaa unbaad adigana samaysay adaa mudan qaali waan isla soo hadlaynaa hadduu ilaahay ka dhigo I love you so much anigana sidoo kale waan ku jecelahay hibo allah maanta shaqo maba qaban karayo waayo warsame codkiisa ayaan maqlay way aragtidiisa ayaa ii dhiman laakiin insha allah waan tegayaa si aan u arko warsame
inkastoona labadeennu aynan wax aqoona isku lahayn oo labadeenna waalid go-aan ku gaadhayn inay isku keen daraan runtii anigu aad baan u faraxsanahay gacmo furan iyo qalbi furanna waan kugu soo dhawaynayaa walaal waa runtaada Leyla maadaama dee waalidkeena isku keen daray wada kale oo naga leexna ma jirto kulli waalidkeena waxay nala doonayaan markasta dee wanaag un bay nala doonayaan anigana aad baan ugu faraxsanahay gabadh adigoo kala ah inaan nolosha la wadaago farxad weyn bay tahay runtii arrinkaana aad baan ugu farxay markii la ii sheegay warsame aniguba aad baan u faraxsanahay caawa shucuurteeda runtii lama soo koobi karo laakiin waxaan rabaa walaal inaan su-aal ku weydiiyo adigoo raalliya waad weydiin kartaa su-aashaad inta waad weydiin kartaa waan kaaga jawaabayaa warsame su-aasha aan ku weydiinayaa waxay tahay maadaama meesha magaalo tahay wax xidhiidha ma leedahay micnaha ma jirtaa gabar aad jacayl wadaagtaan maya Leyla ma jirto gabadh xidhiidh aan wadaagno adiguna waxaad tahay gabadhii ugu horeysay oo xidhiidh aan la wadaago runtii aadna waan ugu faraxsanahay xidhiidhkeena aad baan u faraxsanahay warsame shucuurteeda lama soo koobi karo maadaamaan aan ahay qofkii u horreeyey ee nolosha kula wadaagaya runtii aad baan u faraxsanahay
ليلى الباب ولا قراعية الباب صفر هي وي واو فيري نوني بلاك and black واو مع حنكبر وكان حياتي ورسمي قفتن وحباب وصاحبتي دقالقة وانقرتي هاي برشو ما يصور سمونا برش الله من هباق سولو قرق وقرق حسبتيني يا هاي دوها أيوة نجيب هاي وقل هالنقطة حير تلافون من قال لي الشغلة هاي واو عايه هو إذا قلتك هوري قلتك وريا نجيب أجل نجيبه نجيب هلو هيو وان في عنها قاعلسو ما بريا يد هرقيسي مانيسا واو وان كفر حسنا هاي ها وان كسود وين يا آذي آد وايحي هرقيسي مركا تمادا ينو هانيسا خير بنكون رجيني يا ولال هبة يا صاحب حاجة قصبرتين سما صفي عودو ما شاء الله هذا وكره لكن صاحب مid baan ku sheegay oo maanta suuqan ku soo socdo waxa jira saaxiibada balsiimo walaashii weyneed isugu dhaq maqneed ayaa insha Allah bartooda ku qoran saaxiib الله صاحب waan ku raaci lahaa laakiin soo hadagan arkay ciyaalkii wax baan ku mashquulsanahay saaxiib waan alaabeenayo gurigan yaraha hagaajinay salaajika xisraabal saaxiibada ku sii raacdo insha Allah صاحب hadda ciyaalkii waan ku mashquulsanahay laakiin se ونكو إيمانا يا صاحب إن شاء الله دي الله يدعم هيا إن شاء الله صاحب وكسوقنا وين جوبتها أنت صاحب هيا صاحب هيا صاحب ورسمي ها ليلى هيا محا خلدن ميا وحما خلدنا عادي وحمد إيش يكتب ميا وحما جرى ليلى وعادي صاحب هاي ما حد دوني ناس يسعداني بو هيا صاحب من دونا إنه نقدر نقدر هيا هذا بابا qortaagana dhaxdu qabasha iyo qoftan toosana qumanidu dhaqaaqo badhigid sama way qaadatay qoftu dhalada sanaha qorqornaa ilwahada qortaagana dhaxdu qabasha iyo qoftan toosana qumanidu dhaqaaqo badhigid sama way qaadatay
qoftu dhalada sanaha indhihii qabtaa loqushuucsana ka shaqaha yibtaa qiiraysana qadir baasimeeyartu qaniisana indhihii qabtaa loqushuucsana ka shaqaha yibtaa qiiraysana qadir baasimeeyartu qaniisana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qiimaysana alla qaaya iyo qalbi xarana oqol samiyo qosol fiicana alla quruxsana oo qaabsama yarta qalanjadiyo qiimaysana hibaaq wadiga weynaaday walaalintaan kaa maqnaa maasha allah yaa awalkii hore wad yarayd bee sumaha walaal adigu laakiin adigoo ina yaraad naga tagtay inkoo aad bad weynaad laakiin unka inaad guursato maa kaa maqan nanagaa maxaa guurka ku baray oo bad yar tahay maxaa kugu dhacay walaalo waa sababta hooyo inaad guursatid maxaa yeelay waxaan doonayaa caruurtaan ayayda u ahay inaan arko hooyo waa run walahi arrintaa waxaaban doonayay in badan inaan kaala hadlo ee telefoonun baan doonayay inaan kugula soo hadlo laakiin maanta waan ku horin hooyo macaan waxaan doonayaa inaanaan isjeclayn oo markaan halkan joogay aan isjeclayn inaan isguursano insha allah berrina wuu inoo imanayaa haddii ilaahay ka dhigo waanan kusoo casuumayaa guriga maasha allah waa arrin lagu farxo hooyo si weyn ayaan usoo dhaweyneynaa gabadhayda hibaaqay waa inaad adigana diyaargaroodid ood seedigaa si weyn usoo dhaweyso waxaana lagaa sugayaa casuumad heer sare ah haya insha allah seedigiisi macaan baan usoo dhaweyn doonaa insha allah waa sidaan insha oo laakiin bariiska may baratay ma aqoon berigii hore bismillah ku takhasusay horta kasoo qalin jebisay beenantayda maasha allah berito olaadna baro doontaa ilaad naga maqnay soo maaha halo warsame ii waran fiican tahay haa aada baan u fiicanahay aniguna waa nabadimi alxamdulilah haa waxaan doonayaa warsame inaan is aragno hadduu ilaahay ka dhigo marka xigtana aan hooyo ku baro walaashay kadibna martiqaadan kuu sameeyo haa waayahay waan ku sugaya waay insha allah haye bye bye haye hiba hooyo haa hooyo hooyo waxaa albaabka la qaraacaya waxaan u malaynayaa inuu warsame yahay haa anaa u imanaya hooyo hadda kaala soo dhaway hooyo ka fir albaabka haye hooyo haye hibo yurub waad kusoo caddaatay si fiican baad usoo qurux badnaatay runtii caadi ma tihid waad soo yaraatay xataa da-daadii soo maaha laakiin adiga maxaa kugu dhacay warsame isbeddel baa kaa muuqday kollay qof afrika jooga waad iska garan kartaa xaalkiisa hooyo inankan waa inankan kuu sheegayay warsamaa la idhahdaa barasho wanaagsan warsamo hooyo iska baro
hay barasho wanaagsan maamo farxad bay tahay inaan ku barto magacayga waxa la yidhahdaa warsame maasha allah waa anigana waa maamo sahra maamo barasho wanaagsan soo dhawow hooy inankani waa inankii in badan aan kaaga sheekeeyey waa inan fiican waa inankaan isjecelnahay markaa hooyo mar labaad barasho wanaagsan maamo waan idin soo dhaweynayaa labadiinaba ku faraxsanahay xidhiidhkiina haye maamo waxaan diyaara qadadii inaan caafimaad ku wada cunno insha allah oo may ahayn laakiin inaad saas oo dhan isu dhibtaan waa caadi maxaa dhacay dhibaato male waan isku leenahay dhib malaa waa inaga dhexaysaa barashada iyo qadaynta hibo hadda hooyadaa waan bartay laakiin haway gabadhii walaashayda kula dhalatay inaan bartaan rabaa iyadana hibaaq kaale walaalo waa tan hibaaq barasho wanaagsan warsamaa la dhahaa hibaaq baa la dhahaa barasho wanaagsan waayahay walaal barasho lamid ah haye hibo aad baad mahadsantihiin dhammaantiin runtii waad isdhibteenna waxaan badan cuntadan macaan aad baan idinka mahad celinayaa haddana waxaan rabaa xogaa inaan iska sii tago waan sii soconayaa waad ku mahadsan tahay guriga waa gurigaagii xilli kasta uu ku furan yahay waad iman kartaa hibo hooyo wiilka sii dhaweey warsame walaashii hooyadaynaan ku baray wadigooga markaa adiga arrimaheennii un baanu imi iyo guurkeennii iyo siday nolol wadaag lahayn markaa waa inaynu dadaalnaa adiguna aad aabbaha usoo sheegtay faamiligaaga inaad isoo doonaysid aniguna hooyo ayaan u sheegaya si adeeriya aabba ugu sheegto inaad adigu isoo doonaysid waayahay hibo waan dhammaynaynaa hawshaas anigana waan gelayaa wax walbana waxaan rajeynayaa inay farxada noogu dhammaadaan insha allah anigana dhammaynaya wixii aniga dhinacayga ku xidhan adigana la sii socodsii inaan reerkayga soo socdaan adiga aan kusoo doonanahay insha allah teeda kale warsame wanigii kuu sheegay fiisihii waa diyaar insha allah waynu israacaynaa markaynu saa isu guursano inuu aqal gallo waad i raacaysaa haddii ilaahay ka dhigo waayahay xabiibi waan ogolahay hay haddana waan sii soconayaa nabadgelyo inaan tagaan rabaa maxaa kugu dhacay hooyo maxaa kaasi ah hooyo waxba igama sii ahaa laakiin wiilkan inanteena ay wadataana aqoonayaan leeyahay oo xageed ka baratay hooyo hooyo waxaan ku bartay inaan jaamacadooda dhigi jirnay berigi hore ayuu qabaa oo laba ciyaalo laaday arrinkaas ma iga hubtaa haa hooyo waan kaa hubaa gurigeedan tiga wallay baraynankan waana garanayaa dib baan ugu noqonaynaa arrintaas uma malaynaya sidaas arrinkaas dhacayso may anaa kaa hubataa waa lay baraynankan laba ciyaalana waa u leedahay gabadh Leila la yiraahdo saaxiibayna oo maxaa ku baraystaa waxaad iga rubday Leila weydiinayna loo nafsanayna insha Allah oo miyayna weyn markay Sweden joogteen xaas leeyahay may hooyo ma malaynayo waayo haddii ogtiin oo ma keentin inaga bal hayna timaatiyada ka waraysanayna arrinkaas haye bal hooyo khayr bi rajayna haye hooyo hooyo anigii warsamo waxaan ku heshiinay arrimihii guurka markaa reerkoodii iyo faamiligoodii buu tegayaa adiguna waxaad u sheegtaa adeer iyo aabe say guurka ula socdaan
ay anigana ii bixiyaan. ya oo miyanaad rabtaa inaad noqoto miyara haa hooysan miyara u noqonaya bal hadalka ii tilcaanu kuma fahmine oo miyaadan wax ka ogeyn warsamo xaaladihiisa may maxaa jira warsamo inuu xaaska la leeyahay 2 caruur miyaadan maqan hooyo ma dhici karayso adiga waxa kuugu sheekay aniga warsamo way waan ku kalsoonahay isaguna way ku kalsoonayay markaas waxaan u dhici karaysaa hooyo way dhacday hooyo arrinkaasna waxaa warkaysa walaashaada ka yar haa walaalo aniga ayaan dhahayga ku soo arkay inaan saaxiibna jaamacadooda dhigan jirnay ayaan gurigeeda tagay maandhowi toole kabacdina waxaan arkay waxay ku tiriyo ninkaygan ku barayaa kabacdina warsamo ahaa 2 ciyaal ayay u leedahay walaa ma dhici karayso aniga beenayaad ii sheegaysaan labadiinuba aan kuma sheegayno hooyo arrinkaas waxaad ka soo ogaan aamusoo anigu kama filanayn inuu been ii sheego warsamo hooyo say u dhici karaysaa idinka waxaan sameeyaa isaga ayaan ku tashanayaa ogayma yurub may walaal way dhacday maxaad samaynay laakiin adigu aniga ii taallaa waxaan samaynayo hallo warsame hibo waxaan joogaa beertii jacaylka waxaan doonayaa sida ugu dhaqsaa badanna inaad iigu timaadid beerta jacaylka miyaa tiri haa ma dhib baa jira hibo maxay tahay degdeg war maya dhibo ma jirta iminka ii kaale baan ku uri sida ugu dhaqsaa badan leh waayahay haddaan ku imanaya waaya subax wanaagsan hibo hibo maxaa kugu dhaco salaanta iga qaadi laadahay waxaa lay sheegay inaad xaas iyo caruur leedahay arrintaa maxaa ka jira bal ii sheeg haa waan leeyahay xaas iyo caruur xaas iyo caruur baad leedahay ma xuma qofka bini-aadankaa nolol uu samaysan karaya laakiinse maxaad aniga igu sheegi weyday intaasoo dhan ayaan kula soo hadlayay axdigeena iyo ballanteennina waan adkaynay maxaad miskiinka isaga dhigaysad aniga ila soo hadli weyday bal ii sheeg ballantii axdiga maan doonin inaan ka baxo laakiin aabba ayaa khasbay waad ogtahay aniga aabbahay keligii baa dunida ii joogay isagana cidaan aniga ahayn ma haysto wuxuu yidhahda waan ku khasbanaya mar walba inaan qaato hiba adiga waan ku jeclahay horena waan ku jeclaa haddana waan ku jeclaanaya laakiin aabba amarkiisa inaan qaato waan ku khasbanaaday meelaan uga gudbana waan garan waayay ma xumo warsame qofka bini-aadanka inuu nolol samaysto waxaas yeesho ma og tahay se inaan adiga daraaddaa aan u shaqayn jiray si aan adiga kaaga fikirayay mana og tahay inaan adiga daraaddaa halkan u imi taasi kaama dhaadhacsana ayaan u malaynayaa waayahay hadduu aabbahaa kugu khasbay arrintan guurka dhibaato male waa nolol cusub oo kuugu soo korodhay laakiin waxaa ka qurux badnaan lahayd adigoo ii sheega si aan kuugu hambaliyeeyo hiba aniga qofaan adiga ahayn nolosha inaan la qaato weligay kuma riyoonin sida aan ku jeclan adigaba waad ogey laakiin sheekadan waxay igu noqotay sheeko aan aniga iga weynaatay dhinacan u dhaafana waan garan waayay wax kastana diyaar waxaan u ahay inaan sameeyo si adiga aan nolol kula qaato waayo nolosha adigaan kula qaadanaya oo nolosha aan rabo haddii ay dhabkaa tahay arrinkani anigu hal shardi ayaan wataa waxaanan ku kala ogaanayaa inaad noloshayda iyo aayahayga dambe aad doonaysa muxuu yahay shardigaas shardigan aan wataa wuxuu yahay
inaad xaaskaaga soo furtid si ay nolol u wadaagno labadeena. waan ogolahay wax walba adiga dartaada waan u samaynayaa waan soo furayaa xaaskayga si adiga nolol aan kula wadaago. aad baad ugu mahadsan tahay arrinkan inaad iga yeeshid. caawana waa inaad la soo hadashaa sida ugu dhaqsaa badanay si aan u ogaado gabadha inaad furtay, waayo jacayl dartii ayaad arrintan u samaynaysaa. aniguna waxaan kaaga ballan qaadayaa inaan Sweden ku geynayo arooskeenuna oo Hargeysa ka dhacayo. waayahay wax walbaan kula soo socodsiinayay. iminkana nabaday. ليلى go-aan waxaan ku gaadhay labadeena inaan kala tagno. waan ku furayaa. yaa furniina war heedha maxaa kaa khaldan bal iigu celi hadalkaas. ma doonayo inaan ku sharaxo. waan ku furayaa Leyla, go-aankaasna ma lagama yaabo inaan ka laabto. war samee anigoon waxba kugu samayn oo weliba ku wanaagsan oo baari ku ah ayaad ileedahay waan ku furayaa. war waxaas ma wax caqliga galaa? ama caqliga ha gasho ama yaani gelin, labadeena waan kala tegaynaa. waa go-aankaygii ugu dambeeyey Leyla, ma i fahantay? may kaamaan filayn warsamo, laakiinse nafsigaygu marunbuu ku heli doonaa. sidana suurtagal maaha, waa inaan aabbaha wacaa. halo adeer cumar, waxaan rabaa inaad ii timaadid. may hadda ka wada hadli kari mayno, laakiin horta ii kaalay aniga. haa haye. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليلى adeer maxaa jira oo aad igu soo wacday? ma wax dhibaataa jira? adeer haa, wiilkii aad dhashay wuxuu ilaahay waan ku furayaa, mana garanayo sabab uu igu furayo. yaa waa maxay Leyla waxay sheegaysaa ma runba arrinka furiinka? haa aabbo, waa run. waxaasoo dhan adiga sabab u ah, waayo adaa igu daray aniga qof aanan aqoon u lahayn. gabadhii aan dunida ugu jeclaana aabba adiga ii diiday. haddana way ii soo laabatay hibo, ayada qof aan ahayna nolosha lama wadaagayo. go-aankaana waa sidaan ku gaadhay aabbo. war samee aabba saasaa dhehin. aabba waxaan kuu sheegayaa aniga Leyladan aan kugu daray runtii kumaanu khasaarin, laakiinse faa'iide ayay noo tahay maadaama ani adiga markii hore aan laba ahayn, laakiinse Leyla wayna badisay, 4 baan noqonay. faa'iide ayay noo tahay. beertii aad beertay miraheedii waa kuwan carruurta. aabbo taladeydaan kuu sheegayaa, arrinka furiinka ka noqo. ayadoosan wax sababa aad Leyla aad ku furaysa ay jirin, saasaan kugula talin lahaa. fudeedkana iskala, furiinkana ciyaar maahayn. aabbo udaa go-aanka uu gaadhay warsame maanta. warsame anigoo 2 ciyaala kuule oo wanaaggaaga ka talinaya ayaad tiri waan ku furay, laakiin waxaan rajaynayaa nafsiga aad maanta aniga iga gashay inuu kaa soo ifbaxo. warsame aab, gabadha miskiinta saan ooynaysa oo godobaad ka gashay ma garatay oo ku wanaagsan waxaad samaysay, laakiin ani hal shay ayaan kuu sheegayaa. waa kaa way aragsan aabbahaan ah waa ku dhalay, waxaana maskaxdaada inayna ka imaanin, balse gabadhaas ee waxaan kugu soo shubtay. laakiinse waxaan kuu sheegayaa inay gabadhaas gudka ku ridi doonto.
taladeydana maalin maalmaha ka mid ah ayaa soo xasuusan. Hello Hiba. Hello, warsame. Ma fiican tahay? Haa, hawshii ma soo dhamaysay? Hiba hawshii waan soo dhameeyay. Xaaskaygana waan furay. Hadda labadeena waan isku madax bannaanahay. Wax walba waan rabnana waan samayn karnaa. Waad kala dhamaateen soo maaha? Haa. Sax way wanaagsan tahay. Haddaba berri sidoo kale hawsheeni ayaynu gelaynaa. Waayahay. Waan ku jeclahay. Haa, aniguna waan ku jeclahay sidoo kale. markaa berri waa inaad guriga igu timaadaa 10 subaxnimo sayna hawsheena u dhamayno. Haye waayahay. waan ku imaanayaa. صباح وناكسن هبا. معنا وناكسن. ولا المات هبا بلانسنين إذا هل كان يقول بلامسي يدي واحد دنيا مركا إنا ذي ويدي. وميان الأوجين هبا حالي أي تكتي فلتك حالي أي قرني واني تكتي ساكن وين جلس وانش واني نبض قبتكتي. وين تكتي ها. أبو هيا أبو أبو حافظي وانتقي لأني عرفتني وانكسو واي جارك يوم يدي وحبيل أنا شندقي بقاتي ماشي لما تشوكتو وحمكوك تاب هذه قرنتها ما عرفت ليلة ورسمه لبا ساعدود كور
leyla taleefon baa ii soo dirtay waxayna ii sheegtay inay magaalada ka tagtay waxaadna ogaataa carruurtaada iyo leyla ifka intaad ku nooshahay mar dambe ma arki doontid yee aabbo waa ogtahay carruurtayda inaan jeclahay anigu war same haddaad carruurtaada jeceshahay hooyadoodna waa jeclaan lahayd aabbo maxaad ka hadlaysaa aabbo maxaad ka wada nafsiga aad maanta aniga iga gashay inuu kaa soo ifbaxo mar daba ma arkaysid mar daba ma arkaysid intaan gees maray rag oo dhan